bismillaahi raxmaani raxiim waxaan wanaagsan qayaarta wada naga daawanaysay ku soo dhawaada warka telefishinka Hilaac qodobada aad caawa ku daawan doontaan waxa ka mid noqonayo dawladda Mareykanka oo ka hadashay diyaaradii ku soo dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan urur goboleedka IGAD oo war ka soo saaray doorashada la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka oo maanta gadooday sharciyo muhiim ah oo qayb uu ka yahay sharciga doorashooyinka ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo kulamo ka wado degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud madaxweynihii hore ee maamulka Puntland oo lagu aasay magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland Itoobiya oo xaqiijisay buuxinta biyo xireenka muranka badan dhaliyay Masar iyo Suudaan oo ku guul dareystay heshiiskii ay ka gaareen webiga Niil intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka Hilaac